komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka Awdal ayaa maanta soo gabagabeeyay wajigii koowaad ee tababarka howlwadeenada ka shaqayn doona doorashooyinka isku sidkan ee dalka ka qabsoomi doonta. Howlwadeenadaasi oo ka howlgali doona goobaha codbixiyayaasha ayaa waxa uu gudoomiyaha komishanka ee doorashooyinka ee gobolka Awdal Faarax Ismaaciil Sadci uu sheegay in la dhaariyay howlwadeenadaasi sidoo kalena la bilaabi doono wajigii labaad ee tababarka shaqaalaha doorashooyinka waxaana hadaladiisii kamid ah waxa galabto ay tahay bisha 11 afarteedii maalin isniina noogu soo gabagaboobay jaamacadda Amuud wajigii hore ee tababarka gudoomiyaasha iyo ku-xigeenada iyo xogeyaasha goobaha doorashooyinka kuwaasoo muddo 3 maalmood halkan uga socday oo soo bilaabmay maalintii Sabtidii maanta isniinana u dhamaanaya marka waxa noo dhamaaday maanta wajigii koowaad wajiga labaadna waxaan bilaabaynaa oo ay soo gali doonaan 625 howlwadeen beritoole oo ah maalin Salaaso ah ilaa Khamiistana uu u socon doona hadii la yiraahdo wixii dambe warbixinana waxa soo gudbin doona maalinta Khamiista oo aan soo xidhi doono guud ahaanba labada wajiba tababarkooda aan soo xidhi doono hadii la yiraahdo insha Allah taala. Maxamed Bilibili TV-ga qaranka Boorama.